السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي في الله wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala noo sakhiray inaynu gaarno tobankii maalmood ee agtiisa ugu fadliga badnaa tobankii maalmood ee ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa loogu jeclaa waana 10 maalmood oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku dhaartay shayga uu ilaahay ku dhaartayna qiimihiisa iyo maamuustiisa iyo ixtiraamkiisa iyo qadarintiisa ayuu leeyahay weynaantiisa ayuu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala shay kuma dhaarta ilaa shayga uu ku dhaarta qiimo iyo markaa iyo ajir weyn baa ku jira qofkii ka faa'iidaysanaya ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi walfajri walayaalin cashr waa berigan ku dhaartay iyo 10 maalmood ee u horeeya bisha dilxija sidaana waxaa ku tafsiiray ibn kathiir raximahullah ibn cabaas ibn cabdullah ibn cumar radi allahu canhu wuxuu leeyahay canhuma waxaan maqlay nabiga ilaahay sala allahu calayhi wasalam oo oranaya ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد ابن عمر إليهي ما إلهي أكتس كوين مجره عمل لقب صدى إلهي سبحانه وتعالى وشعري هينا مجره إلا 10 كان مالمود مويانا مالمو إلهي شعري هاي ومالمهن 10 كا عمل لقب صدى وإلهي شعري هاي و10 كان مالمود عمل كلقب صدى إلهي سبحانه وتعالى مالمهن أكتس أي كويهين إلهي مالمهن أكتس أي مركا قيمة مركا قيمة آد وفربضا يوناك آد وفربضا بإلهي أكتس كليهين haddaba walaal maalmahana qiimahooda iyo wanaagooda si oo ilaahayna raali wuxuu ka yahay inuu ku arko adoo maalmahani dadaalaya camal wanaagsanna shaqaysanaya nabiga wuuna la dardaarmay sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi faakthiruu fiihinna waxaad badisaan min altahliili allahu akbarta badiya tusaaluuna siinaya nabiga badiya allahu akbarta alxamdu lilahna badiya takbiirtana badiya marka allahu akbartana badiya waayo allahu akbarta iyo dikriga aada samaysaan maalmahani dikriga maalmihii hore la sameeyey la qiimo ma aha sadaqada aada maalmahan samaysaanna sadaqadii maalmihii hore la qiimo ma aha marka salaada aada tukataan maalmahani salaadii hore markaa la qiimo ma aha oo markaa la mid ma aha walaal haddaba camalka wanaagsan ee maalmahani ilaahay aada buu u jecelyahay camal wanaagsan shaqayso fursaddan kusoo martay ka faa'iidayso laga yaabaa inaysan beri kusoo marin laga yaabaa inaadan gaarin laga yaabaa inay fursadda kuu saamixin haddaba walaal ka faa'iidayso ilaahay subxaanahu wa tacaala raali wuxuu ka yahay inuu ka arko adoor isaga raali gelinaya ilaahayna wuxuu raali ku noqdaa waxa isaga uu kugu waajibiyey inaad samayso marka hore salaada markaas waajibka ka adkow salaada markaas sunnaha ku dar sadaqada sunnada ku dar soonka markaa waajibka ka faa'iidayso haddaba maalmahani soonka